reerka la yiraahdo garxadis waxaan leeyahay garxadisoo waxaan noo keenay horta waa fadul ina champion waxaan leeyahay nin weyn oo studio ka kacay baad anigu ku naqaanaaye haddii xaafadihiinu aqal ka dhigeen isagana waxaan leeyahay Buurmadow Hargeysa joogid bay kaaga baahanaysaa wixii ma ka dambeeya waa ninkii ka ganacsan jiray fool maroodiga waa ninkii markii dambana shaqaalaha u ahaa xukuumaddii nabad iyo nolol waa maalintii Sultaan Mawlid Ali Sabeese uu hiilka inooga baahnaa waa in hiilkiinu uu ka muuqdaa maalmaha soo socda boqor Badmadow oo ka mid ah bahda dhaqanka Soomaaliland ayaa si adag ugu jawaabay qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo maalinnimadii shalay ka soo qayb galay caleemasaar ka qabsoomay caasimadda Hargeysa boqor Badmadow oo goor dhaweyd warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si kulul ula hadlay madax dhaqameedkii lagu casuumay caleemasaarkaasi isagoona sheegay in aanay ahayn hawlo iyaga u taala marnaba ayna xaq u lahayn in ay ka hadlaan arimaha beeshiisa gabagabadiina waxa uu boqor Badmadow fariin u diray beeshiisa uu ka tirsan yahay ee Subeer Awal bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle shirkad jaraa'id maanta waxaan u qabtay inaan kaga hadlo xaalado ilaa shalay nagu soo kordhay inaan kaga hadlo arrimaha saddex qodob baan kala qaaday saddexda qodob ayaynu ku ekaan doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim saddexda qodob reerka la yiraahdo garxadis waxaan leeyahay garxadisoo waxaan noo keenay horta waa fadul baa noo keentay arrintaasina bal inuu dib isku noqdo ninka Buurmadow la yiraahdo ee ceel afweyn ka soo kalahay ka soo guureeyay ee naxliga u soo guureeyay wuxuu inta u soo socday wax xumaan Subeer Awal iyo xanuun Subeer Awal qabo waqti hore ninka aad baan u la hadli jiray hadalkiisa inkii dambe waan iska daayay Buurmadow maanta markuu Hargeysa oo waliba jigjigay yara ka dhex ilaahdo qadaafi baan ka joogaa anigu waa nasiib daro horta waa shakhsi ku sifoobay xumaanta aadmiga aan waxba ka xishoon xalaal iyo xaaraanna aan aqoon waa ninkii ka ganacsan jiray fool maroodiga waa ninkii markii dambana shaqaalaha u ahaa xukuumaddii nabad iyo nolol ayuu shaqaale u ahaa markuu kii maanta annaga uu ceel afweyn xumaan uga soo guureeyo uu Hargeysa ku soo waabariisto waxaan leeyahay gobonimada aad qiraysay inaad tuujuule kaga xishootay hay 80 jirkii aad burcad ka afduubatay ayaanay waxba kugu gaadhin waxaanay wax kale wax kugu gaadhin dawladdii iminka u dambeysay xukuumaddan ayaad waxaad ku lahayd waa la garanayaa ciidamada qaranka waxaad ku lahayd waa la garanayaa maanta aniga shaadiri soo xidhatay oo sheekh la siyaartay iskaga kay soo dhigtay isagana waxaan leeyahay Buurmadow Hargeysa joogid bay kaaga baahanaysaa wixii ma ka dambeeya Hargeysa joogid bay kaaga baahanaysaa isagana intaasaan ku dhaafayaa ina champion waxaan leeyahay taanu waqti hore studio bu haystay studio heesa waxa lagu duubo haystay maanta de bankan qol cadide ee kirada aad karaysay ayaa hawl kaaga taalaade ee hawlaha ay kuma yaalaan bankan reeraha dul keentay reer kale taasaa hawl kaaga taalay kaayda champion wax ka qabo nin weyn oo studio ka kacay baad anigu ku naqaanaaye haddii xaafadihiinu aqal ka dhigeen arrimaha bankaasi wax ka qabo ayaan ku leeyahay champion kaana intaasaan ku dhaafayaa daba waxaan la hadlayaa dadkaygu maanta waxa amraan inagu siinayaa waa maalintii Sultaan Mawlid Ali Sabeese uu hiilka inooga baahnaa waa in hiilkiinu uu ka muuqdaa maalmaha soo socda saad u muujin lahaydeen waa maalmihii
ninka adag ee maalinta adag inagana inaag taagan maalintii inii baahan yahay waa in la arkaa gariirkiina waxaan ilaahay inooga rajaynayaa guul iyo gobonimo waxaan inooga rajaynayaa ilaahay midnimo iyo isku duubnaan ayaan inooga rajaynayaa xukuumadda dalka haysatana waxaan leeyahay adiga inigaa bilaabay hawshaa inigaa bilaabay cabdiraxmaanow amba dheeraysataya amba gaabsataya taasi waa mid inigu aad bilowdeen annagu markii hore waxaan islahayn bal hawlo badan dib uga dhiga laakiin hawlihii inagaa hore u soo dhigay guddidaadii buurta gacan libaax ayaa arrimaha hore kuugu soo dhigtee waxaan ku leeyahay arrimahaana iska hubso oo arrimahaana haddii aanad kula socon arrintaa tallaabo sharciga waafaqsan leh waa inaad ka qaadaa oo waa inaad ka jawaabtaa maanta in innagii hargeysa gudaheeda guddidii buurta inoo fuushay ee waxay ogeed ay yeeshay inay maanta innagii wax inoo kala doorto horta waa mid aanan filaynbaba laakiin waxaan u mahadnaqayaa shacbiga xalay toole sida ballaaran leh hiilka u muujiyey ee mawlid cali sabayse hiilka ugu muujiyey aan u mahadnaqayaa war waad mahadsantiin baan in leeyahay hadalku waa furan yahay nin walo subeer awali meeshuu joogo uu ka hadlayaa hadalkaas sida iyagu bilaabeen buu u soconayaa la kala jari maayo waxa weeyaan nin waliba afkiisa wuu furanayaa hablaha aamusnaan lagu meheriyaaye la aamusi maayo waa la hadlayaa wax walba waa la sheegayaa sidaa imikaad hawsha u bilowdo min annaguna u dhammaystirayna wasalaamu calaykum